عليكم ورحمة الله وبركاته. برشة الصومالي من الجوكتين دمانتي نورتواني سلامي مدنا وسير مجيء وحري هذا يوروب عثمان إيك وعاي هو يلا يقاتي صدح عرور لبعض كل ما ومد الصومالي ضنا هي ستة حق درن أنا هو نور استعمال شرعي حق درن دلك النرويج نبتقلدون كأقصد دوننا نقصوا بالسي حبسيا نقول قرطي لعجمك لو أبي بكر نقول قرطي قاركان مسكحيا والين قاركان maxay erbada ku socdaan qaarteen caruurtooda runtii aan la tusino ayadana xanuun kale ay tahay dadka qaarna la tuso waalidka Soomaaliyeed qaarkood xataa wadanka ay ka masaafireen caruurtooda joogan caruurteena diinta Christianka la baro waxyaalo aad u fara badan aniga teamkeena waxa codsanayna dalkeena inaan u laabano caruurteena nala siiyo dalka Soomaaliya aan u laabano teamkeena aniga baasaboorkoodana uma baahnin caruurteena kaliya hana siiyaan waa ku soo qaldanay inaan laabana u baahanahay maadaama dawlad fiican ay noo dhalatay mudan wasiir waxaan kaloo rabnaa inaan ogaano ingiriiska teamkeena kale oo jooga waraaqadihii ay ku keeneen markii ay galayseen shirka ingiriiska wixii tirkoobka aan suubinay wali waan wadnaa qaarkii kaleeto waan ii soo dirnay oo waan siinay iyo teeda kale hooyada Soomaali markay booliska Norway soo weerarayso sidii argagax camal ay soo weerartay ama alqaacida inaad tahay maantay haddaan wadankayga masaxi wala dhaco runtii waan ka samri lahaa caruurtayda laakiin waxa uu ku taabay way ilmahayga noqonayaan cusuri oo aan rasiistayaal iga noqonayaan oo iskuulada laga cusuriyana la madoobaad tihiin maxay wadankan iska malihiin nooga baxa caruurtii iskuulada lagu leeyahay dawladda Norway inay qaadato oo kaliya caruurta ku filan tahay ma fiiriso mana daryeesho caruurta waxa loo geeyaa lesbian naag iyo nin isqabo waxa diintiyo ka bedeshay marka mas'uul waxa ka ah dawladda Soomaaliya anaga waxaan u baahanahay wadankeena inaan gadaal ugu laabano animada galdoona u soo u nimid hooyooyinka Soomaaliyeed qaarkood maskixiin ma fiyo albaabada taagan maanta ma qaatay bir ma qaatay ku haya iskuulada ka qaadanay baanahaagii ka qaadan cid ku sheegayso male runta waxa ay tahay wadankeena u baahanahay inaan gadaal ugu laabano waxa iiga fiican maanta inaan dhinto وحبط لي ودي أما قاعدة ده تان سكحها كده أي نوصو بنايان أي ناس استعمالها سلا حق درله وارد في يوم ماشى متجو هاي كستوي المانسة بكست تحنيها لو يستعمل ما أملي كرو جابها تقانو حبضها كنت تقانو وركاي عدة جيسين سمر بنت أي أرورنا يان بس اللي جيسنا يا وركوها أبانا دولة الصومالي مدة من الإسك إن دتري كرماها ومد بلشة الصومالية تنحس تو أبان نبدي بري مركي علو جليا إسرائيل أرجع وكبيرايا القاعد وكبيرايا إنه النقطة بحي توي إنه وحقي وعنقر للرفاهية مركو يريا وقدت كبير متى كاب إيش محي توي دولة النرويج سنة كل صوت دافع المي أي قاتم بانكا محي توي وحي صوب بندقين إنه محي تحقق وحبرشة أما مسكين أي كليدة توي أوجين دولة waxay ka qabanayaan male marka waxa uga baanahay dawladda Soomaaliya wixii ilaahay way dhixin dadkan kaleeto oo safka ku jiro ama liistaa ku jiro inay badbaadiyaan kuwaas badbaado baan iyo hooyooyinka maskaxdooda waa caruurtooda in loo raadiyo waayo mas'uul baa ka tihiin caruur maskax ma qabaan waalidka Soomaaliya hadday maskax qabin dawladda Soomaaliya inay u raadiso waa caruurtooda meel ay ku hubsato dawladana la xisaabtanto maxay sida xaq daran ay nagu soo bisay oo noo xasuuqday runtii aniga dawladdan waxa ay soo bisay wax weyn waa ama dawladda la og ama vaanka waxa ay soo binayaan dawladda Norway madadgolyada doonka ay nasiiyeen waxa nooga dar dhibaatada hooyo kasta sariirtay ku ooyaysa hooyo kasta way ilmeynaysaa ilmeediya ka maqan ma aniga saddex example meel dabaalan tagay ilugtaydi arkay gadaal u laabtay sababta u laabtay xabsi haday u dhigto hooyan ay بولس اللي واحد ليه وحقدنيسو بس عربنا اللي يقول فنا محبس اللي يتحبا وهالقف فيه اللي ناس ملك أنا أجينا عنك تدي كلامتي ما أعوذين أو تغصوا السلام قبل وهاي بولس قرب الدب بالغو قبنا بولس بالغو
marka dowladda Norway inaa la xisaabtantiin anaga waxaan muwaadiniin Soomaaliyeed muwaadiniin dhibanaana teeda kale tuwa laabanayna wadankeena u laabanayna Norway ma rabno nabadgelyo waaye lacag way ku siiya laakiin xasuuq ba ana ka jira caruurta burcad badeeda maqli jiray waxa waa burcad caruur aan bixiyay xandaabada ku dhaartaa musuqmaasuq ku dheer corruption ajire ku leeyahay laakiin Norwayna corruption xun ka jira musuqmaasuq xun abuugi qalinka ka jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.